السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحريرة سودة يا تاgeerayaasha waxaa la yiraahdaa Chiwell TV meel kastaba aad joogtiin insha Allah. maanta waa maalintii wareysiga. maanta insha Allah waxaan wareysanaynaa fanaanad qaran ah oo waxaa la yiraahdaa ma sha Allah waxyaabo badan fankeeda iyo waxaa la yiraahdaa mujaajiladeeda oo dhan waxaa la yiraahdaa ummadda Soomaali wax weyn ugu qabatay qaybta wacyigeliga. waxaa la yiraahdaa waxaan soo dhaweynaynaa insha Allah maanta fanaanadeena qaaliga ah Safiyo Tusmo oo cid kastaba ay taqaano. waxaa la yiraahdaa Jibriil soo dhawow Jibriil soo dhawow gacmo furan soo dhawaada kulligeen insha Allah la share gareeyo aan wax kala faa'iidna insha Allah. طبعا waa la ogyahay su'aalaha mar kastaba wiil kastaba qof waxaa la yiraahdaa caan ah waxaa la yiraahdaa ummadda Soomaali ma sha Allah qayb libax ka qaatay. waxaa la yiraahdaa haday noqoto waxaa la yiraahdaa horumarkeeda, haday noqoto waxaa la yiraahdaa qaybta saxaafadeed, haday noqoto qaybta waxaa la yiraahdaa dadka matala filmaanta iyo waxyaabahaas. waxaa la yiraahdaa insha Allah iyadii baan imika sugaynaa insha Allah si aan u wareysano. marka alla share gareeyo hala share gareeyo haddii kale maalintii hore gabooyaha ayaan video soo duubay tadambe waxay noqonaysaa Soomaalida video iyagana soo duubo عشان موضوع الشير كي لايك ما قرأتين. مركز سودو هذا إن شاء الله جبريل سودو شير قرية إن شاء الله. ما أنت فنانات غالية وحريرها وطنية أيان إن شاء الله ورسلنا إما كون يدي بسوقنا إن شاء الله سي أي حريرها أي أصول قشو. مركز سودو هذا إن شاء الله كل جين هلا شير قرية. si aan waxaa la yiraahdaa looga faa'iido waxaa la yiraahdaa experience-keeda, talooyinkeeda, nasiixadeeda haday tahay markaa soo dhawaada insha Allah. soo dhawaada iyadoo baan sugaynaa insha Allah. waxaa la yiraahdaa iyadoo baan sugaynaa insha Allah. hala share gareeyo insha Allah hala share gareeyo soo dhawaada waxaa la yiraahdaa asma soo dhawow ilaahay ku daayo hala share gareeyo hala faa'iido halaga faa'iido insha Allah. wareysiga aan wareysanayno waxyaabo badan ba insha Allah ka faa'iideysiin. waxaa la yiraahdaa asma soo dhawow ilaahay ku daayo hala share gareeyo hala faa'iido halaga faa'iido insha Allah. wareysiga aan wareysanayno marka insha Allah waxa weeyaan waa qof fanaan ah waa qof qaali ah ma sha Allah waa taan arkaa way soo gashay bal wax soo qor. waxaa la yiraahdaa saafi soo qor wax soo qor si aan waxaa la yiraahdaa dadka ugu share gareyno insha Allah. Cabdi Jibriil camo insha Allah adigana waa lagu sugayaa insha Allah. ninkii psychology-ga adiga waa lagu sugayaa insha Allah. markaan insha Allah wareysiga dhameystay insha Allah adigana waa kula soo hadlayaa. markaa soo dhawaada insha Allah kulligiin. wax soo qor bal wax soo qor Safiyo Tusmo wax soo qor insha Allah si aan ku soo jiido. wax soo qor insha Allah. okay ما شاء الله soo dhawow waa taa soo qortay waan soo qabanaya insha Allah.
السلام عليكم عليكم. ولا السلام عليكم وعليكم ورحمة الله السلام في عندي وبركاته. أركتان. ها سفي عم كواركا. ما شاء الله سودو أوكي. صافيو ما شاء الله فنانتنا قالقة waxaa la yidhaahaa muddo dheer waan ku suganay beedkayga miskiinka ma artay si waxaa la yidhaahaa uga soo hadashid oo insha allah ka wareysano qof maasha allah khibrad iyo experience u leh shu'uunta soomaaliya ayaa tahay markaa soo Thank dhawow you baan ku walaal. leenahay haddaan nahay dhalinyarta ururka GYL khaas ahaan waxaa la yidhaahaa GYL TV-ga qaybtiisa markaa ummadda soomaali bal waxaa ka war lahayd marka ugu horeysa ummadda Soomaalida waan salaamayaa walaalo dhammaantiin waxaan idin leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad baan idin salaamayaa walow aan jeclaan lahaa waxoogaa inaan sii hadashidoo si ay dadka kuugu soo bataan. may waa la sheer garaynaya waa Laakiin la sii wadaa insha allah ha aad baan idin salaamayaa dhammaantiin. waxaan idin leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. insha allah inakoo iska biloobaynaa dadku iyagaa iska imanaya ma garatay صح. طبعا su-aasha ugu horeysa mar kastaba sidaan kuu sheego marka ugu horeysa waxaan ka hadlaynaa qaybtan waxaa la yidhaahaa ummadan la yidhaahaa gabooye amba dadka minority-ga la yidhaaho ma garatay qaybta waan labaadna gar waxaan ka hadlaynaa qaybta siyaasadda soomaali iyo waxaa la yidhaahaa ay ku jirto weliba miidiyada amba saxaafadda ma garatay iyo marka صح. dambena waxaan ka hadlaynaa insha allah waxaa la yidhaahaa waxaa la tala lahayd dhalinyarta soomaali ee maanta kacaan u ah waxaa la yidhaahaa soomaaliya marka صح. su-aasha ugu horeysa waxa weeyaan gabooye dadkan gabooye la مم. yidhaaho miyaa kala taqaanaa imise qabiil bay yihiin ma muslim iyo gaalaba xagee ku nool yihiin matalan soomaaliya informationka bal ummadda bal moo yaraa taaban kartaa والله horta in adeer waad mahadsantahay horta waan kuu mahadcelinayaa beejkaaga inaad صح maanta igu soo casinto su-aasha haddaan kaaga jawaabo gabooye waxa weeyaan waa beel Soomaaliyeed صح dul ahaan gabooye ka yihiin laakiin qabiilo badan weeyaan waxa صح ku jirta waa Tumaalo waa Madhibaan waa مم. maxaan ku dhahdaa qabiilo badan bay leeyihiin صح laakiin waxaan u arkaa dee anu beel Soomaaliyeed oo beelaha Soomaalida ka mid ah inay yihiin baan u arkaa صح of course waana naqaanaa dee oo maxa weeyaan iguma beel maanta aniga la ibarayo amba igu cusub maaha sidaan beelaha Soomaalida u aqaano baan iyagana u aqaana اوكي ما شاء الله اوكي ما دام si fiican u taqaanid sababta مثلا loo dadka مثلا xuquuqdooda loogu diidayo Soomaaliya amba loo dulmayo oo dee inay مثلا ay wax ka noqdaan maanta khaasatan markay burburku yimi ka bacdi ma sababta ma garanaysaa waxay tahay loo takoorayo amba waxa loogu diidsan yahay xuquuqdooda la siiyo soo beelaha kale ee Soomaaliya inaad horta sababta loo takoorayo beelaha gabooye horta Mm. Soomaali oo dhan baa walaalo ayaa isku koorto ismuquunisa xoog isku muquunisa waa waxyaalaha maanta qayrkeeni naga reebay maanta adigana aad Yurub u joogto anigana America u joogo ayay horta uunbaa dee dhibaatooyinka intaa la keenaysa صح Soomaalida sideedaba waxa weeyaan qabiil buu muquuniyaayo iyaga dee waxaynu nahay dad qabaa'ilo ah oo صح qabiilnimo ku hawlgala oo maaragtay danahooda ku qabsada qabiilnimo ku qabsada ayay horta aynu nahay صح labadii beelood ee isku xigana way ismuquuniyaan oo way is haystaan oo صح maaragtay ma aha in maaragtay xoog la isku muquuniyo dee صح gabooyo u gaar maaha waa mid ay Soomaali oo dhaniba isku samayso ma fahantay صح so ani waxaan u arkaa dhib ay Soomaalida mujtamaceedu ka siman yihiin oo inuu reerba reer yidhaahdo maxaan ku dhahdaa anaga reer hebel oo reer hebel baan in dheernahay anaga reer hebel oo reer hebel baan ka soo horreynay anaga reer hebel oo reer hebel baan ka badannahay waa wax Soomaali oo dhaniba ay qabaan oo maaragtay ay iyagoo dhan isku sameeyaan ma aha wax maaragtay beel u gaar ah ma aha waa qofka hadalka maqla siduu isaga u qaato un bay noqonaysaa beel kasta anuu rabin beelaha Soomaalida maanta dee magacooda inaan ku wada dhifto haddana kolba beeshaad dhex joogtabaa beesha kale bay yastaay oo maaragtay ay wax ka sheegtaa kolba taad joogta maahina ta kale tan la yasaya shalay markaa dhex timaadana tii shalay yasayay joogtay bay wax ka sheegaan oo yasaan waa wax wareegta ah oo Soomaalida oo dhanba maaragtay ay sameeyaan walaalo okay waxaan doonaytaa ku weydiiyo qadiyadan iminka gabooye la yidhaaho adigu ma waxaa aragtaa waa qadiyad diini ah mise waa qadiyad psychology amba society ahba
mise waxa weeyaan qadiyad wadani ah oo waa in ay Soomaalidu ay tiragaraysaa intii xilliiso qadiyadda gabooye micnaha in su-aasha si fiican iigu soo celi okay gabooye waa dad Soomaaliya ku dulman sida imika qoladan minority-ga iyo dadkan oo dhan yani anigu waxaan ka soo qaadaya minority-ga Soomaaliya oo dhan طبعا sax qadiyadahooda waa ogtahay dhibaato badan baa haysa iyaga laftooda ma garatay marka Soomaaliyeedu haysto iyaga si gooni ahaan baa loo dhibaateeyaa waxyaabo badan loogu diisan yahay marka adigu sax maadaama aad tahay qof Soomaali ah adigu qadiyada hadda isleedahay imika xal u hel ma waxa ka tira garanaysaa inta xal u haysid qaybta diin ahaan aad tiraahid diinta ayaa ka mas'uul qadiyadan inta xilliso dhibaatadan mise waxa weeyaan inay noqoto qadiyad waxa la yiraahaa mujtamaca laftiisa inuu xal u helo mise waa qadiyad wadanka oo dhan khusaysa oo waa in ay noqoto qadiyadaha wadaniga ah ay dawladahaas Soomaaliya ka jira inay mas'uuliyadda saaraan si ay u xilleeyaan horta qadiyadan adiga hadda waxaad afka ku dhifatay minority horta Soomaali baa la wada yahay Soomaalida anigu waxaan aaminsanahay minority iyo majority ma kala leh Soomaalida waa Soomaali way siman tahay horta ani shakhsiyan ahaantay Safiya way ii siman tahay beelihii baadiyaha degi jiray geeleyda ahaan jiray baa waxay markii dambe la soo galeen magaalada dardar ah ma aragtay Soomaalida taariikhdeeda marka dib u raacdo waxay u badnaan jirtay Soomaalidu 90% 95% baadiyay ahaan jirtay geeley bay ahayd oo xoolahan waxay ugu jecleyd geela dadkii geeleyda ahaa waxay dhaqan u ahaa tribe wars inay qabiiladu isdilaan in geela la kala qaado in ma aragtay xoog la isku muqooniyo in reehebel kun geel intay ka soo qaadaan 10 nin ka dilaan waxay ahayd sheeko ma aragtay war aan dhamaanin oo baadiyaha ka socda in adeero baadiyi baa laga soo guuray magaalada la soo galay markii magaalooyinka la soo galayna waxa la soo galay ismuqoonintii xooga ahayd ee xoolaha lagu kala qaadiyay baa la yimi magaalada gabooye markaad diinta ka eegto markaad tiri xagga diinta islaamka aynu haysano ma sheegaysa reehebel baa majority iyo reehebel baa minority dhaqanka Soomaalidana markaad eegto meel ay ku qoran tahay reer hebel ka sareeya haba yaraatee ma jirto waa la kala badan yahay waxa laga yaabaa laba beelood oo kala badan oo kala maaragtay population badan in la helo laakiin beel in dhaanta haba yaraatee ma jirto gabooye adigu marka hore waxa lagu tiri gabooye maxaad ka aaminsan tahay gabooye anu waxaan ka aaminsanahay beel Soomaaliyeed native of Somali inay yihiin baan aaminsanahay dadkii dalka lahaa originalka dhulka u lahaa inay yihiin baan aaminsanahay oo native ay yihiin ayaan aaminsanahay xal ha laga daayo maxaan ku dhahdaa minority ku sheega iyo aflagaadada iyo population ahaan baa loo baahan yahay in laga joojiyo aaminsanahay wax ay cawaanimo keenayso oo qofka waxa ku dhaqmaya amba aaminsan number 1 inay diinta ku yar tahay qofkaas number 2 inuu yahay qof cawaan ah oo ma aragtay cilmi saynisna aan wax ka garanayn cilmi diineedna aan wax ka garanayn taas nima inay keenaysaan aniga aaminsanahay dadka waxaan ku ma aragtay aan dhihi lahaa arrimaha noocaasa waa mid loo baahan yahay in horta dumar iyo ragba laga kaco oo laga hadlo oo maxaan ku dhahaa dawladda laftirkeeda of course lug bay ku leedahay inay ka hadasho loo baahan yahay okay waxaan doonayaa ku weydiiyo طبعا dadkan minority-gu dhibaato badan way ka dacwoonayaan iyaga laftooda ma dareemaysaa intay dib ay iyaga laftooda intay dib iyagu isku hayaan dhibaatada imka dhex taala yani dhibaatada lagu hayo inta iyagu imsa percent siinaysa inta iyagu ka mas'uul yihiin iyagana waxa laga rabaa iyaga waxa laga rabaa waxyaalaha inadeer acceptation ku dhibaato bay ka qaadanaysaa noloshaada haddaad accept garayso maanta haddaan anu magac xun kuu bixiyo oo maxaan ku dhahay adiga cadnaan magacaaga cadnaan ha bedelo oo magac aanad u qalmin aan kuu bixiyo oo magacii accept garayso laftirkeedu waxay noqonaysaa amba wixii aan kugu sameeyo aad accept garayso waxay noqonaysaa wax damage adii laftirkaagu aad isgaarsiisay sidan horeyba kuugu soo sheegay beesha gabooye laftirkeeda baa waxay beelaha kale ka tabanayaan dhexdooda iyagu way sameeyaan way isku sameeyaan asxaab badan baan anu ku leeyahay
صح deegaankan anu ka imid dad badan baan isla soo kornay iyaga laftirkooda baa reer hebel iyo reer hebel isku kala qaada sida of course Soomaali oo dhan ay samaysayna kala sameeyeen صح tribe wal oo Soomaali ah oo dusha صح markay reer hebel ka yihiin haddana marka hoos صح loo soo dego waxay noqonayaan boqolaal reer hebel kale ay kala noqonayaan iyaga صح dhexdooda baa ismuquuniya oo is yasa oo is aflagaadeeya oo reer hebel baa صح badowa iyo reer hebel baa cawaana iyo reer hebel baa you know صح majority iyo annagaa minority iyo magaaladan annagaa leh waa wax soomaalida ka siman yihiin laakiin صح haddaad u qaadato wax damage adiga kuu gaaro oo adi lagugu samaynayo haddaad u qaadato of course waad adi laftirkaagu waxaad budkii lagula dhacayay mid la eg baad adi laftirkaagu isla dhacaysa okay waxaa la yidhaahdaa iminka gabooyo aan ka gudubnay ma garatay waxaan gelaynaa iminka qaybta waxaa la yidhaha soomaalida waxaa la yidhaahaa soomaalida markaan anagu fiirino dumarka iminka mujtamac kastaba waxa weeyaan waa dumarkiisa ma garatay iminka jarmal baan joognaa jarmalka wuu burburay wuu baaba'ay waxaa la yidhahaa dowlado badan baa qabsaday wuu kala go'ay ma garatay dumar baa u istaagay oo waxaa la yidhaahaa maanta heerkaa maanta soo gaarsiiyey adu ma filaysaa dumarka Soomaaliyeed maadaama adigu qof aad dumar aad tahay inay dumarka Soomaaliyeed inay carruurtooda ku koriyaan cusurnimada iyo qabyaaladda ay qayb libaax ka leeyihiin way jirtaa way jirtaa waa ereyada wuxushnimada ah oo maxaan ku dhahdaa dhibaatada dee ilaa heerkan dadka soo gaadhsiiya sheekadu inay daba dheeraato waxa soo gaadhsiiyey waa wax of course qoysaska ka socota oo reeraha ka socda qof haddii la aflagaadaynayo amba laba qof oo Soomaali caadi hadday isdilayaan haddaanay qabiilkaa isku caayin inay kala bogteen uma arkaan so of course ilmaha markay dhaliilayaan amba ay ilmaha wax ku sheegayaan waxaa laga yaabaa inay beesha magaceeda ugu yeedhaan oo yidhahdeen ha saas baa tahay reer hebel baa tahay maxay baa tahay oo ilmaha dhegta loogu rido inay yihiin reer hebel tarayb la isku caayo maaragtay wax dee xun loogu rido dhegta marka of course guryaha Soomaalida xaqiiqada markaan ka hadlo way ka jirtaa waana ma aha waana hadda in maaragtay magacan uu socdo oo siyaasadani socoto oo ilaa maanta 2018 soo gaadho wax ma aha written ah oo meel ku qoran iskuulada wala laguma dhigo madrasadaha quraanka laguma dhigo ma aha meel u furan oo lagu barto in maanta beel reebel la xumeeyo dhulkeena kama furnayn afkeena soo gaarsiiyay of course hooyooyinka soo gaarsiiyay maaragtay guryaha Soomaalida heerka soo gaarsiiyay soo su'aashaadii weydiisay waa wax jira okay way sidee uga bixi karaan markaa su'aasha labaad dumarka Soomaaliyeed waxaa la talin lahayd waxaan kula talin lahaa cawaanimay ka tahay number 1 horta qofka diinta yaqaana de arrimaha noocaas kuma dhaqmo number 2 eray horta wax kasto xun oo maanta halka ayna keenay waxa keenaya waxa weeyaan waa aqoon xumada maaragtay ayaa halka ayna keentay dadka Soomaalida ah ee diinta bartay baa inagu yar Soomaalida wax bartay baaba sideedaba yar waxaad arkaysaa qabiil dhan oo 2 milyan oo qof ah oo 2 nin oo aqoon-yahana ku faana wala hebel iyo hebel baa reer hebel ka dhashay oo labada nin ay beesha dhan ka caansan yihiin waxa keenaya beesha inteeda kale oo dhan baan wax baran cawaana soo waxaan kula talin lahaa horta dadkan Soomaalidu sideedaba study inay sameeyaan inay diinta bartaan islaamka diinta waxyaalo badan oo mugdiyay qofka islaamka ka saartaa lambar 2 qofka Soomaaliga horta inuu barto dhaqanka xataa Soomaaligu wax badan buu ka leexinayaa dadkeenan inta majority-ga maxaan ku dhahdaa maanta waxa haysa amba diin xuma haysa amba dhaqan xuma haysa cilmi sayniska dad badan baaban hadda shaqaba ku lahayn oo sooba gaarin oo maanta Soomaaliga ba qorin baa jira soo waxaan kula talin dadkan inay maaragtay Soomaalidu sideedaba inay wax barato diinta islaamka ugu horeyn haba ka bilaabaane inay wax bartaan si ay uga furaan waxyaalaha maxaan ku dhaca cawaanimada ay u keenayso okay waxaan doonta ku weydiiyo طبعا waa taqaanaa siyaasadda 4.5 markaan xisaabino 4.5 adigu ma u arkaysaa dastuurka dhan ee Soomaaliya marka ay tahay qodobka koowaad dhulka Soomaaliyeed waa dhul islaama shariicadiisa uu ku xukumaya waa shariicad islaama ma garatay intay ku xigto markiiba laakiin
دولة الصومالية دستور كيدو و 4/5 يعني ضد با 4 صح ضدنا وهاف ما قرتي مهم. aduu miyaa u مهم. aragtaa imika waxay Soomaaliya la hagaagi weeday ma u aragtaa inay tahay dastuurka laftiisa dawladda lafteediiba hadaba kugu xukumayso adiga shakhsi ahaan intaaba tahay half qabiilana kalena ay ku sheegayso waxay yihiin full taam yani arkaynay waxay Soomaaliya horumar la gaari weeday weeyaan horta cadnaanow walaalo anu horta politiga waxba kama politic ma aqaan waxba kama garanayo laakiin caqligayga haddaan cabiro anu horta Soomaaliya ma arkin kuma soo korin waxay dhinac daanyar baan ka gaadhay oo maxaan ku radaa qafiirka Ethiopia ku dhashay Ethiopiana waxay ahayd anu waagaan joogay qabale iyo gabarey un baa lahaa dadku xataa government ma bay hungurayn jirinba 4.5 waa sheeko cusub oo maaragtay dhawaan timi anu markaan u fiirsado waxaan u arkay waa shay la moodayay inuu maaragtay macnaha kullay cidii keentayba waa ciidan Soomaali ahayn baa keentay xal baa idin noqonaya baa la yiri 4 waa 4.5 so waa afar qabiil oo dhameystiran iyo qabiil haafasaad aduu dadkii lagu leeyahay macnaha loo fasiranayo aduu haaf baa tahay anagu aan dhameystirnahay ereygaasi haddii la ii dhiibi lahaa horta reerka afar iyagu number afar looma sheegin soo ma ogid 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 qofka markaad adigu tahay afar tahay aniguna 5 ahay labadeenu waxba isma dheerin so iyaga laftirkooda afartaasi waa loo qariyay which one is 4 iyo which one is 1 iyaga laftirkooda ma ogaan karaan reer walba haddii la dhihi lahaa bal afartiinaasi 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 soo kala qaata maanta afartaasay ka dhex taagnaan lahayd oo waxa la isku dili lahaa 1 iyo 2 oo 4 ka laga carari lahaa saan uu numberkani uu horta tusayo 4.5 waa masiibooyinka Soomaalida hadda haysta waa waxa tribe war ku dhalay Soomaali nabadeedii baa walaal xal laga gaari waayay xal markii laga gaari waayina 4.5 4ku of course waa qabiilada dhibaatada wada waa qabiilada Soomaali ka degilaadahay maanta iyagu kursi amba isku haystaan amba dhul ha isku haystaan amba maaragtay dhibaato 200 sano ka soo wareegtay hore u kala galeen maanta ku kala aargoosanayeen waa afarta qabiil ee Soomaali ka degilaadahay waa afartaas reer ee la siiyay afarta la siiyay numberkan shantuna waa numberka leh warbal meel aan nabad uun ku seexano ma heli karnaa maanta taagan wadankeena saad ogtahay bacadnaanow dagaal baa inagu daba dheeraaday 30 sanadood baan colaad ku soo jirnay waxaan nahay Soomaali dhibaato walaal ku raagtay so 4.5 kani waxaan ku sideedaba sida wax loo qaybsanayo dhan baa qaldan sideedaba qaldan maadaama aanan maanta one man one vote aan lagu soo baxaynin oo lagu soo baxayo amba kursi la kala iibsado amba reer hebel baa hebel watee ha loo saaro amba anaga reer hebel haddaan hebel loo dhiibin maxaan ku dhahaa telefoon badan baa igu soo dhacaya raalli ahaada haddaan loo dhiibin reer hebel degaysa waxa weeyaan waa wax horta laga socon doono laga kori doono oo 4.5 kani sidii masiibooyin badan oo soo marayba loo soo mooday ayaa la moodi doonaa waxa iman doonta cadnaan oo waxa iman doonta maalin aqoontaada lagu tiriyo kursiga lagu qabsan doono oo qofku maxaa taqaanaa maxaa soo baratay wadi you know halka lagu geynayo oo yaa tahay iyo reer hebelkee tahay aanan meesha maanta aanan madaxweyne lagaga noqon karin dadka 5ka lagu sheego waxaanay ugaba xumaanin baan numberkaasi aanu sheegi lahaa nin maanta afartaasi ay intay doorteen ay meesha saareen ma jiro in kasta oo madaxweyne noqda waa nin numberkaas mala yacniga ku yimi oo iibsaday kursiga gatay amba waxaas ku yimi so hadda waxaaba soo dhowba one man one vote markii lagu kala baxayay qofku aqoontiisa ku imanayay waxaad arki doontaa 4 nin oo hooyo wada dhashay oo iyagu dawladda ka taliya oo lagaga daba hadli doonin ayaa insha Allah soo socota marka waa anu waxaan ku daraa one of the war inuu numberkani yahay dagaalada socda dagaal qabiilka la isku dilo inuu yahay baan anigu u arkaa haddii anigu aan ahaan lahaanahay number 5.5 ka haddaan ahayna dhib uma arko because adiga 1 kaaba ima dhaantido waxaad maanta of course Soomaalida 1 iyo 2 iyo 3 ga isku haysataaba 5 ka waxay ku meel ay ku dhaamaan maanta lama arkaayo politicna kuma dhaamaan
صح maxaan ku dhahdaa arrin kaloo ay maanta ku dhaamaana ma jirto inkastoon anigu dee politic waxba ka garanayn oonan dhihi karin waxaas iyo waxaasaa صح looga baahan yahay oo anigu aan markaan xaqiiqada kuu sheego anigu gabarey aan ahay oo aan maaragtay dee caadooyinka baadiyaha iyo xeerarka iyo waxaas wax ka aqaano oonan dowladaba wax ka garanayn صح laakiin anigu waxaan kuu sheegayaa uun inay tahay shay dhowaantaan aan joogno dhammaan doono insha allah oo laga socon doono اوكي aad iyo aad baa mahadsan si fiican baa uga jawaabtay ma garatay ilaahay ku daayana waxaan doonay inta ku weydiiyo waxaa jira imika maamulo horta su-aasha weyn waxa weeyaan soomaalidu federaalka ma adigu dabcan mujtamac soomaaliya waa ku nooshahay maraykanka amba waa arkaysa ma garatay waxa weeyaan soomaalida marka adigu markan la fariisatid kelmadan federaalka imika maraykan baa joogtaa waa dowlad federaaliya ma garatay dowladda federaaliguna markay tahay waxa weeyaan magaalo kastaba madaxweynaha waxay leedahay wax la yiraahdo barasaab amba waxay leedahay gudoomiye amba maayar bay leedahay ma garatay markuu مثلا nin maamulkaasi maanta nin مثلا Texas oo kale maayarkeedu maanta ma qaban karo مثلا for example carabaha oo kale heshiis la soo geli maayo isagoo calankiisii maamul waxa la yiraahdaa magaalada wata wuxuu la tagay calankii Mareykanka ma garatay sax marka su'aashu waxa weeyaan federaaliga adigu ma umalaysaa kelmadda federaaligu Soomaali si qaldan bay u fahamsan tahay gabigeedaba horta federaalka Soomaalidu waxa weeyaan of course qalad bay u fahamsan tahay federaalka waxa ka faa'iideystay oo ma aragtay ilaa hadda lugta kaga taagan waxa weeyaan waa warlords weeyaan meesha walaal horta masiibo markay dhacdo dad badan ayaa on Janis u helayn marka nabadu jirto aan Janis heleen baa yaa Janis u hela oo ka faa'iida صح Soomaalidu waa shan baa la yiri shan deegaan bay kala degtaa Soomaali Ethiopia Soomaali Djibouti Soomaali Kenya Soomaali North iyo Soomaali South صح Soomaalida de maanta kadeed ku haysto dhinacba u kala miirmilana waa North iyo South صح maanta federaalka markay noqoto anu waxaan aaminsanahay federaalku Soomaalida oo dhan buu quseeyaa shanta Soomaaliyeed oo dhan inuu quseeyo صح qofka u dhashay Soomaali galbeed u dhashay صح inuu federaalka mar hadduu federaalkii wax ka noqon karo adoo jigjigo u dhashay haddaa muqdisho shaqo ka heli kartid oo dowladda aad governmentiga ka qayb geli kartid adoo Djibouti u dhashay constitutionka Soomaaliya I think saasaa ku qoran federalismku waa mid shanteenaba ururinaya oo Northka iyo Southka kaliya hadda loo haysto ma aha waa mid Djiboutianka ninka Djiboutianka oo Djibouti ku dhashay uu president kaga noqon karo maxaan ku dhahdaa Soomaaliya jigjiga ku dhashay iyo ka Geerisa ku dhashayna sidoo kale ay president ka noqon karaan federalismku horta waa sida صح ilaa nabad la helo oo horta labadan South iyo North dhexdoodana nabad ka dhalato iyaga laftirkoodu ay maaragtay kala jijiidkan ka baxaan Southka laftirkiisana ay nabadi ka dhalatana sheekooyinka qaarkood baaban horta laga hadli karin oo hagaagiba karin so federal marka lagu yiraahdo dawladda federaalka ah waa dawlad Soomaalida oo dhan dawladu ah oo qosaysa ma aragtay hadda Northka inta Somaliland oo kale ilaa ictiraafka ay helaan oo la yiraahdo ictiraaf baa la idin siiyay waanad ka go'deen oo calankooda iyo dawladooda ay gaar u baxdo caalamka marka timaado Somalilanderku federaalku hoostagaya oo dadka Somalilanderka ay halkan joogno anaga Somaliland kuma dhiibnin waxa lagu dhiiban yahay Soomaali weyn baa lagu wada dhiiban yahay Mareykan iyo meel walba so federalismku waa mid inagoo dhan ina quseeya oo dawladda federaalku Soomaalida oo dhan ayay u tahay maxaa la dhihi jiray bay u tahay dalad ay u tahay dadka Soomaaliyeed oo dhamaantoodana aniga waxaan kula talin lahaa to C ba inay ka shaqeeyaan horta South inay nabad ka dhalato si maxaan ku dhahdaa in xal loo helo oo musiibadan ina dul saaran Ilaahay inuu qaado because waa u jeedaa Cadnaan oo qurbaa joogta every day waxa arkaysaa Soomaali gaalowday iyo Soomaali gay noqotay iyo Soomaali dhimatay oo la dilay iyo Soomaali la xidhay baad arkaysaa dhulkii loo soo qaxay nabad laguma haysto Soomaali ani waxaan kula talin lahaa inay gidigeeduba federaalka iskugu tagaan oo ay maad aragtay ay xal ka keenaan صح okay waaya tayib waxaan ku weydiinaa imika maamuladan adigu miyaa aaminsan tahay inay Soomaali ay yeelato 10 madaxweyne
يعني مثلا مدحوينها maya بوتلاند مدحوينها باكي ميانا واركن مادام دولة الفدرالي اي تهي انت لمن كان مقعد مدحوينياش laga qaado oo leeraha waa gudoomiyihii degmada Puntland waa gudoomiyihii waxa leeraha magaceed meeshan Galmudug waa gudoomiyihii مثلا DDC magacan madaxweyne intuu isagu laftiisu dhibaato ummadii ku hayaba la waayo toon madaxweyne marka ay yeelato waa dhibaato miyaan ahayn wax waraay ka dhiganaysaa raayigaaga horta waxaad i weydiisay waa erey sensitive ah haddaan idhaahdo madaxweynaha Soomaaliya federaalka horta kow dee federaalka ninka madaxweynaha Muqdisho ka baa horta madaxweyne dalka ka sida dee ajendaha ku qoran qof kastoo caqli lena maskaxdiisu ay dee qiyaasayso wadan 20 madaxweyne adduunka laguma arago dee 20 madaxweyne ma jiro wadanku madaxweyne kaliya u leeyahay haddaan maanta anigu idhaahdo maxaan ku dhahdaa Puntland madaxweynahoogu madaxweyne maaha waa gudoomiye dee madaafiic baa la igu garaacaya inaad ani laftirkayga barkaysa u taagay Soomaalidu waxay tiraahdaa Soomaalidu waxay tiraahdaa canaanka yaabe reer ma doojo صح laftirkayga baad cabsi gelinaysaa hadhowta in la yidhaahdo kaali tusmo madaxweynaha iyagii dhanaa baa tiri madaxweyne maahe what is wrong with you ma Soomaali oo dhan marka waa in laakiin su'aashaada haddaan uga jawaabo sida saxda ah sida saxda haddaan uga jawaabo waxa weeyaan federaalka ninka Muqdisho ka madaxweynaha baa dalka madaxweyne ka kuwa kale oo dhan Allah sahlo insha Allah iyagana dee anigoona lahayn madaxweyne ma tihiin aan dhihi karin laakiin haddana dee kole iyaga laftirkooda ba federaalka hoos tagaan oo waa la ogyahay inay federaalka hoos tagaan riisanka federaalka 20 madaxweyne dee Soomaaliya Texas baa ka weyne 20 madaxweyne inayna yeelin karin inaguba waan ognahay walaalo iyaguna way ogyihiin waaya insha Allah iyaga xaggaas ka gudbeyna ma garatay waxa la yiraahdaa waxaan inta ku weydiiyo saxaafadda Soomaali amba yani warbixinta dadka ka shaqeeya miyaa is leedahay education oo cilmiyeysan oo dee waxaan la yiraahdo saxaafadda si fiican way u yaqaanaan صح يعني مثلا qof wuxuu soo qaadanayaa kamarad waxa la yiraahdaa wax kasta oo dhaca uu iska soo duubaya ma eegayo ma fiirsanayo waxa la yiraahdaa waxani hadmay wadankii ay xumaysaa hadmay baabiisaa waxa soo dhan ku xisaabtooy maayo waxa ugu muhiim ah uu fiidiyoga yar soo duubay markii intuu social media soo galiyo amba intuu war soo qaado aanu soo hubsan iska soo galiyo marka ma isleedahay dadkan saxaafadda waxa la yiraahdaa saxaafaddu horta ayagana ku sheegay saxaafaddu international markay noqoto iskuul baa loo galaa jaamacad baa loo galaa waxa la baraa number 1 waxa jirta wax la yiraahdo sharafta saxaafadda saxaafaddu sharaf bay leedahay ma garatay yani sharafteedu waa maxay ina mesela wixii marka soo gudbinaysid number 1 iska hubsatid number 2 wixii intaana ka hadlin amba qadiyada ka hadlaysid horta qadiyadaasi saamo weyn wadankaaga ma ku keenaysaa ummadii ma kala kicinaysaa oo khatar ma ku tahay number 3 wixii waxa la yiraahdaa beenta ahayd amba propaganda inta wixii ku sii daro waa ka xaraan marka adigu miyaa u aragtaa saxaafadda Soomaali markaan ku hagaajiyo su'aasha inay waxa soo dhan yani aan ka hadlay sharafta iyo hubsimaata iyo inay tixgelinayso wadankii miyay leedahay horta in adeer Soomaalidu maanta waa wada fanaan iyo wada wariye dad badan oo nan fanaaniin noqon kareen baa fanaaniina dad badan oo noqon kareenin wariye aan noqon kareen baa saxaafadda iska soo galay oo aan maad aragtay ruleska saxaafadda ba aan garanayn صح wal ood qabataana xeer buu leeyahay hadda hadalkeena maanta Facebook live aan kaga hadlayna labadeena 200 iyo jarjar qof ina daawanayso ayayna ya jid la mara leh
oo maad aragtay isaga laftirkiisu rules leh oo xeer leh oo صح xadad la mara leh oo inaga labadeennan hadlayna baanan wadooyinka qaarkood karoos garayn karin صح dadka maad aragtay saxaafadda مم. inta saxaafadda micnaheeda garanaysa ayaa aad u yar aad u صح yar qof walba hadduu kamaro helo oo meel iska soo istaago oo wixii maskaxdiisa kusoo dhacday iska yidhaahdana way صح dee ma fiicna صح saxaafadda laftirkeedu of course waxaad arkaysaa wariye qabiil nin halkaa مم. intuu soo istaago haddaanu anagu ree hebel nahay ree hebelkii sidaa lagu sameeyey ree hebel iyo ree hebel baa saas ah you know haddana hadhowta meesha waxaa lagu soo qorayaa wariye hebel 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 baa lagu soo qorayaa qofkaasoo صح kale wariye maaha kamaradii iyo isaga unbaa jaanis isku helay marka صح qofka suxufiga ah ee ruuliska saxaafadda yaqaana مم. wadooyin aanu marayn baa jira iyo waxyaala aanu samayn karin uu og yahay inuu مم. dhibaato uga imanayso صح waddan dhan bay saxaafaddu rogtaa صح dadka hadda annaga maraykankan aan ku noolahay waa konton waddan oo la isku qabtay صح wixii saxaafadda aan ka aragno keliya baan aaminsanahay realityga dhan ma ogaan karno wixii صح cnntu soo daysa baana mara waxaa laga yaabaa maanta oo dhan in lanoo sheegayo wax مم. been ah laakiin annaga dan noo ah oo hadhowto maad aragtay realityga haddaan ogaano مم. waddankuba dee ka kici lahay oo dhibaato ay ka iman lahayd marka صح saxaafadda waa run way u baahan tahay in dadka saxaafadda laga shaqeeyo in مم. la kala reebo in صح qofkii wariye u qalmo laakiin taasi maxay imanaysaa markay horta مم. nabad la helo oo xal la helo innaga laftirkeennii baa diyaarad مم. buubaysa saaranaya innaga laftirkeennu cagaha dhulka dhigno ayaa la kala صح saari karaa waad aragtay qof walba wixii aniga hadda intaan kamara soo basti baa tagoon kamara soo iibsadan waxaan rabay intaan ku hadlaa youtube kusoo shubaya wariyaan isku صح qori karaa anuuna wariyanimadiiba aanan wuxuu yahay garin aan wariye ma noqon karo war ma صح sheegi karo laakiin qof walba صح maskaxdiisu iska isticmaalaya youtube-ku iska soo shubaya dan wariye صح hebel hebel baa wuxuu maanta yidhi baa laleeyahay marka saxaafadda laftirkeedu way qasan tahay aad bay u qasan tahay soomaalidana صح saad u aragtayba social صح mediaha qalad bay u qaateen oo maad aragtay waxay u haystaan dee waxaad rabtid baad iska tiraahid bay u haystaan oo adiga arkay waxyaalaha facebooka صح ka dhacaya iyo soomaali waxay samaynayaan صح marka saxaafaddu of course way ka tahay qayb bay ka tahay walaalo اوكي waayahay waxaan doonayaa dacwadda ku dhiibo ma garatay marka waxaan jecelahay qaybta saxaafadda inaan markaa dacwaddan ku dhiibo intaa fariin u dirsid ma garatay waan gar waxaa imanaysaa aniga shakhsi ahaan cadnaan waxaan doonayaa masalan farmaajo inaan waxaa la yidhaahaa masjid gudbiyo amba waxaa la yidhaahaa cabdiweli gaas amba muuse biixi waxaan doonayaa dhibaatadeeda aniga haysata hadday noqoto shakhsi ahaan amba qabiil ahaan inaan ku yidhaahaniyow lacagteydina waan bixsanayaaye aniga warkaa amba fariinta madaxweyneyaasha iga gaarsiiya telefishinku imanayaa wuu iga duubayaa hadalkii wixii maanta dhana ka hadlayay okay wuu qaadanayaa hadhow buu iisoo diraa telefoon oranaya waa youtube-ki waan geliyay hadhowna warkaa laga soo deynaya ma garatay waxaan arkayaa markaan youtube-kii furo amba telefishinka waxaan ka maqlayaa dadkii la haybsooco amba dadkii laga tiro badan yahay hadda anigu waxaan ugu yeeshay magacayga shakhsi ahaan amba waxaan ugu yeeshay yani magaca qabiilkayga ma fahamtay taa miyaana arkayn lafteedu inay saxaafadda amba miidyadu number one hadday noqoto inay dhibaato ku hayso dadkan minority-gan iyo waxanba iyadu inta qayb weyn libaax ay ka leedahay oo waxaa la yidhaha arrintaas oo kale waxaa fariin ugu dir lahayd saxaafadda soomaaliyeed horta ereygaasi dadka la haybsooco dadka laga tirada badan yahay dadka minority-ga ah qof aanan suxufi ahayn baa isticmaalay waa dadkan kuu sheegaya marka horeba cadnaanow suxufi saxa haddii warka loo geeyo oo saxaafadda micnaheeda yaqaana number one qofka suxufiga ahi interviewgu qofka ka qaaday ma jarjaro unless marka horeba qofka uu kala heshiiyo oo maad aragtay qofkan marka horeba la interviewga laga qaadayo hadduu wax xasaasiya ku hadlayo marka horeba ma record gareeyaan oo ma duubaan haddii interviewga lagu heshiiyo oo intii qodobeen kaa waraystay iyo intii hadaleed ka hadlaysayba hadhowto ma kala reereebaan oo intay rabaan ma soo daayaan marka suxufiga laftirkiisa interviewga kaa qaadaya wuxuu yahay mid aanan suxufi noqon karin oonan haysanin maxaan ku dhahdaa experience suxufinimaba aan haysan ayuu yahay ereyada la isticmaalo oo ad leedahay macnaha majority-ga iyo dadka la haybsooco iyo dadka laga tirada badan yahay iyo waa liitanimo weeyaan waa waxaan kuu sheegaya cawaannimadu keento unbay ka mid tahay
adiga cadnaan hebel hebel baa lagu yidhaahdaa nin reer hebel hebel oo qabiilkaasaa tahay anoo صح magacaago saddexan garanaya oo reerkaad kasoo jeeda haddaad reer u hadlaysana reerkaad ka hadlaysa magacooda haya صح inaan dadka la haybsooca iyo dadka laga badan yahay iyo sheekooyinka daciifka aan ku hadlo waa laga fiican yahay walaal okay waxaan gelinaa iminka qaybtii waxaa la yidhaahaa waxaa la yidhaahaa saddexaad ma garatay waxaa la yidhaahaa طبعا adigu waxaa tahay qof masraxiyada samayn yani fanka ku jira ma garatay su-aashaan doonta weydiiyey way jiraan dad yani maasha allah adigu waa ka mid tahayba oo taabtay dhibaatooyinka jira waxaa la yidhaahaa ka jira waxaa la yidhaahaa waxaa la yidhaahaa matalan dadka la dhibaateeyo amba dowladda amba waxyaabahaas oo dhan ka hadla ma garatay adigu inigu ma tiray garaysan matalan inta barnaamij matalan yani dhan oo sanado qaadanaya inta program u dhigtiin oo la dagaalamaya qabyaaladda la dagaalamaya waxaa la yidhaahaa cunsurnimada la dagaalamaya yani barnaamij ku saabsanba dadkan la dhibaateynaya iyaga laftooda intay nala shaqeeyaan ay iyagu laftooda ka qayb qaataan ma tiray garayseen oo ka hadlaya macnaha yani matalan dadka yani jareerta dadka matalan cadcadka dadka matalan gabooyaha dad inala shaqeeya iyagu laftooda oo qadiyadda iyaga aad ka fahamtiin iyaga laftooda intaad soo kaxaysiin war kaa nala shaqeeyo adigu laftaadu actor nala noqo oo qadiyadaada ka hadal ma tiray garaysaan horta inadeer waxa jirta qofka markay shaqadiisu tahay wax joogto ah oo maaragtay uu everyday uu soo saarayo amba tv ka shaqeeyo ayuu dhihi karaa ma shalay tan baad ka hadashay maantana tan ka hadal annagu waxaan nahay magaaladayda horta intaydan degan groupkan hadda aan filmaanta yar ku samayno wiiggii maalin ayaan jaanis helaa amba labadii wiig maalin baan jaanis helaa horta aan wax ku duubno wixii aan duubnay waxaan is leenahay maanta bulshada inaan ka qoslino kelihaatay ayaan waxu samaynaa oo dadku maaragtay wax iyagu ay leeyihiin oo afkoodii ku hadlayo oo hadda magaaladayadan waalidiinta ku badan dad waxa jooga aad u tiro badan oo waalid ah oon english garanaynin oo maanta oo dhan tv-ga waxa ka socda aan la socon just inaan minute yar siino oo dadka waxaan afkooda ay fahmayaan aanu soo dhigno oo maaragtay aan ka qoslino baan horta filimaanta u samaynaa waxyaalaha ka hadlaya macnaha dee anagu ma nihin dad qabiile iyo waxaas ku xidhan reer walbana way nagu jiraan qabiil hadda intaa reereed noo sheegtay naga maqan wuu yar yahay oo dadka aan wax ku wada samayno waa qabiil walba way nagu jiraan inkastoo naan dee tirin oo naan isdhehayn maanta micnaha aanan rayd u lahayn reer hebelna qofa looga yeedho ay nala dhigo waxe reer hebelna oon anagu ku qaadano qofka talentigiisa aan ku qaadano oo nidhaahno hebel baa talenti lehee janis hadduu noo hayo dee aan nala dhigo dad badan oo talenti lahoon janis ba noo hayno wax nala dhigi karin oo time kaba hayna ay jiraan laakiin waanan ku cusubnahay barnaamijkani hadda anagu aan samayno 3 bilood ma dhanna intaanu ishellay oo anaga horta groupkeygan aan wax soo saarno 3 bilood ma dhanna barnaamijka ugu horreeyay oo soomaalida ka baxsan oon samaynana wuxuu ahaa waxaan ka samaynay oromada oo maanta dee dagaal soomaalida uu ka socdo aanaan dagaal oromo aan ku qaadayno oo annaga aan ataagaynana aanaan u samaynin just for fun iyo exactly hooyo soomaaliyeed oo nin oromaa inan kasoo doontay waxay samayn lahayd ay desay soomaalidu u hadlaan aan uga hadalay laakiin maanta reer hebel aan ka hadalo iyo reer hebel waxaan ka samayno weli arrimahaasi arrimahan ka hadalay maaha weli waxna kama samayn صح اوكي واي سؤاشان كويدينيا waxa weeyaan Soomaalida waxa la yiraahdaa inta soo madaxweynaha soo maray ma garatay madaxweyne kasta matalan marka hore shacabka loo tumaa صح ma garatay soo dhaw baa la yiraahayo waa kii naga saariyay badda oo saasaaq waa qansaxi waa marka dambana waxa arkaysaa markuu week joogo oo ninkii kursigii wali isagoo oran bismillaahir rahmaanir rahiim oo hawl badan sugaysa isla markii wax arkaysaa mucaaradiin badan oo oranaysa ninkan ha dhaco ninkan waa cunsuri ninkan waa qabyaalaysi markiiba negative kiisun bay soo saarayaan marka arintaas adigu saa u aragtaa Soomaalida qaldan mise madaxdan la dooranaya baa qaldan ana madaxweyne leelma kama aragba Soomaali cajibisi soomaalida qaldan soomaalidu horta sideedaba markaad u fiirsato waxay qofkaad arkayso madaxweynaha maanta la dooranayo
maalinta la dooranayo loo sacabtumayo oo dhammaantood ay maaragtay dee lasoo dhaweeyo 2 cisho 3 cisho markuu joogana la qodqodo familigiisa horta la keeno hooyadii iyo aabihii lasoo dhigo ubadkiisa lasoo dhigo isla markaaba isagii attack lagu qaado I think waa wax nature-keena ku jira oo dadka negative-ka baa dee markaaba waxay qof walba midhaa wuxuu doonayaa in gurigiisa la geeyo dee maxaan ku dhahdaa guriga dee madaxtooyada say markaaba dagaal bilaabayaan adu waxyaalaha yaab kale ood arkayso Soomaalida ku arkayso madaxweynihii shalay la caynayay aad arkaysaa maanta 3 bilood bay isagoo kursiga kasii maqnayn isagoo la amaanayo صح ninka shalay la shiidayay oo lagu mudaharaadayay oo la lahaa hanaga dego oo hana dhaafo oo hanagu sameeyo sanad waddanka hadduu ka maqnaado soo laabto waxaad arkaysaa isagii oo loo sacabtumayo oo la soo dhaweynayo oo isla dadkii shalay caynayay ay soo dhaweynayaan صح sideedana Soomaalida waxaan ahaan jirnay iyo waxaan lahaan jirnay iyo waxaan sameyn jirnay iyo hebel wuxuu sameeyay iyo hebelkii hore wax dad waxaanu nahay baastigii degan oo presentigi iyo future-ka ka fikirin waxa maanta taagan hadda for example madaxweynaha dalku leeyahay jooga madaxweynaha shalay dad baa u sacabtumayay oo soo dhaweynayay oo gacmaha u taagay haddana 2 bilood intuu haysan isla dadkii un baa caynaya had bari markuu ka tagana sanad intuu maqnaynaysa dadkii maanta caynayo bari amaanaya baad arkaysaa so midha lagama fiirsado ay qofka Janice ma siino problemka Soomaalidu waxa weeyaan qofka madaxweyne loo doorto amba xildhibaan ha loo doorto wax alla wixii loo dhiibo Janice lagula xisaabtamo lama siiyo صح isla markaaba attack baa lagu qaadaa weerar baa lagu qaadaa caytira badan baa loo geeyaa media loo soo fadhiistaa laga caayaa haddana bari markuu meesha ka tago sanad ka maqan yahay dadkii shalay media ka caynayay un baa isla iyagii un baa bari media ka amaana waa waxyaalaha ani laftirkeyga aan la yaabay ka mid tahay walaal صح waxaa la yidhaha wiil baan xaggan blog saaray mubaarak la yidhaaho waa saaray dhalinyarta xaggan bay arkaysa ma garatay dad baa iska jira dee shaqadeedu waxay tahay Facebook oo intay daawadaan oo yaa hadduu qof qur'aan akhrinaya hadduu soo galo waa iska caayayaan ma garatay marka waa maya Soomaalida wax weeyaan looma joojiyo anigu waxaan ahay qof artist aan ahay halkan soo fadhiista ma weynaysid walaalo qof wax ka sheega amba maaragtay negative soo qora sheekh umal baa Soomaali ka amaan waaye sheekh Mustafa halka markay soo galaan waxay u soo istaagaan kaliya nafteen iyo cadaabteen kala badbaadiyaan صح haddana sometimes commentiga haddaad akhrido waad naxaysaa waxaad leedahay dadkani ma crazy ba so commentarieska dadka commentiga qora don't worry hana blogging ha iska nafiso qofka hadduu xanuunsanayana xanuunka baa haya hadduu maangaab yahayna maangaabnima haysa hadday wuxuu isagu ma anaku page-kayga ma garatay ma kaftanni ma garatay pages kala jiro oo dad kala sacaayay waxyaabaha laakiin anaku xagan qofkii caytaba markii blog ma saarnaa ma garatay waayo anaku waxaa noo muhiim ah fikir baan wadanaa anaku cidna cadow ma ku nihin anaku cidna ma ka soo horjeedni anaku waxaan wadnaa hadafkayga aanu nimi waxa weeyaan waa laba qadiyadood ma garatay qadiyada koowaad waxa weeyaan Soomaaliya sidii xal u heli lahayd oo adiga iyo dadka mesela kulamada ah wadanimadu ay ku jirto Soomaaliyeed wadankooda Soomaali jecel sidii fikirkooda wanaagsanaa ay u soo gudbin lahaayeen ma garatay oo Janice weyn u heli lahaayeen siday u cabiraan iyo qadiyadayada oo aan doonayno ummadda Soomaaliyeed lafteedu intay fahamto oo waa dad Soomaaliya si wax ula qaban lahaayeen iyo sidii fikir ugu soo gudbin lahaayeen lagu wara shaqeeyo si loo helo wadan ala wareedleeyahay ma garatay aanay cid gaarna u lahayn qofkii inta ka baxa anaku shakhsi ahaan page-kan markii blog was ka saarnaa waayo qof xaysamaya sideedaba walaalo Soomaalidu topic-ga laga hadlayo kama hadlaan صح dadka commentiga qoraya iyo qofka hadlayo topic-gu ka hadlayay isma lah mar walba inta badan waa la isweydaarsanaya aad baan idin salaamaya Jamiile iyo Idil Barkad iyo Mustafa Omar dhammaantiin ba soo dhawaada walaal idin salaamayna bari baa waxaan arkay macnaha waxyaalaha maskaxdaadu diido ka yaabiya dadka comments-ka qoraan hadda maadaama aan ku taaganahay gabadh cadaana oo muslina baa Facebook iigu jiri jirtay gabadhaas live-ka bay xoog u soo gali jirtay gabadha live-ka markay soo gasho habeen baa waxaan maqlay gabadhii oo hadlaysa waxay leedahay Cabdiyo ani Carabi ma aqaan bay English ku leedahay I don't read Arabic bay leedahay moogta صح commentiga fiiriyay waxaan is leeyahay qofkan Carabiga qoraya naag cadaan ah oo Mareykan Carabiga u qoraya had fiirisid صح wiilal Soomaali ah baa waxay ku caynayaan af Soomaali صح ma aqrin karto iyadoo af Soomaali waa inaad maskaxdaada isticmaasho qofkan aad la hadlaysid horta wuxuu ka hadlayo hatta waxay ka hadlaysid Soomaali ma qusayso wax inagayna quseeya
ma aha سمعهن waa naag maraykan ku صح dhalatay nin صح muslina ayaa qabay gabadhii صح commentiskii bay ku waaleen waxay ku leeyihiin you are fake أمم، muslim أمم، waxay leeyihiin maalintan qosolka ugu weynaa wuxuu ahaa ninka ay ها ku leedahay hebelow waxaad qoraysa ma aqaana wuxuu leeyahay oo أمم، kaalay أمم، أمم، naaheedhe weli qalbi dhagax ma waa maalmihii qalbi dhagax soomaaliya laga soo qaaday weli qalbi dhagax صح ma etoobiya haysatay waan fiiriyey waxaan صح idhi dadkaani maba صح fayooba gabadhani waa naag صح maraykana wuu arkayaa inayna soomaali ku hadlayn wuu arkayaa inay waxay ka hadlaysaba uu soomaali qusaynin صح maxaa keenay صح you know commenteska ayaa islama socdaan tobigeenna dad baa iska soo gelaya waxaan ka ها hadlayna jaanis siin maayaan wixii صح maskaxdooda kusoo dhacay isku qorayaan marka soomaali صح dad badan oo waalan baa inagu jira anigu ma fiiriyo mana u joojiyo inkastoonan horta alxamdulilah dad badan oo heeririsaba ani aan lahayn oo commenti igu صح soo aflagaadiyay aan weli arkin صح laakiin haddayba dhacdona xataa ma fiiriyo maalin baa waxa soo gashay facebook live inanta la yidhaahdo nicimo joker صح waxay ka hadlaysay waxyaalaha negatifeka xijaab bay xidhnayd xijaabka weyn oo صح jalaabiibka la yidhaahdo bay xidhnayd صح waxay tiri gabadh xijaaban oo hadlaysa ayaa commentiska waxa loo qorayay naa isa soo astur صح gabadha wayba asturan tahay dadka ها indhahan wax kama arkaan miyaa maxaa ka qaldan wuxuu yidhi ninba halkaa أمم، soo galay wuxuu yidhi nicimo joker adiguba isa soo astur kaco xijaab bay xidhan tahay haddee head to toe mid weyn bay soo xidhantay ayaanta صح so صح soomaalidu walaalo commentiska waa adiga الو arkay waxaad arkaysaa qof ay jarka ka tan اه wallahi gabadhii aan kuu sheegayo commentis cay ah صح siday soomaali ugu waday heer waxay أمم، gaadhay ay tiraahdaa diinta waa idinka tegey I'm going back to my religion صح diintiina ma rabo صح waxaan ku dhaha waan idinka naagtiba ay diinta kaga saareen comment bay kaga saareen say u caynayeen so لا commentiska lama ناكتي fiiriyo wallahi صح ya ما هو والله يا بس maalin والله يا بس والله وحاسن وحا ويان يعني انا وحا والله يا دب ما لها دمر كمارتي يعني انا قلنا الرجا marka live soo galo haday la caayo dib ma laha ma garatay laakiin waxa arkaysaa nin gabar baa live soo galaysa sidoo uu caayo sidoo uu maagayo adigi baaba naxaya ma garatay waniyo miyana gabar walaasha miyana jirin gabadhan waxa ka hadlaysa bal fiiri marka ugu horeysa barnaamijka laga hadlaya wuxuu yahay bal adigu fiiri ma jirtaba caayda iyo may xataa walaal iyaga laftirkooda jaanis haddaad siiso aniga maalin gobol kale intaan tegay waxaan soo dhigay facebookayga gabdho soomaaliyeed صح wiil baa gabdhihii wuxuu u caayay si dee adiyaabaysu u caytamay صح inankii qoraal baan u qoray waxaan ku ihi hunno wiil soomaaliyaa tahay hooyo soomaali baa ku dhashay inan baad madhaalo dhalatay soomaali maxaa kugu kalifay gabdho soomaaliyeed oo ani beejkayga ii saaran iyo anigaba inaad sidaa noo soo aflagaadayso sometimes dadka ma joogaan markaan ku leeyahay baan kuu sheegaya laba cisho kadib buu ii soo jawaabay inankii qoraal dheer buu ii soo qoray wuxuu yidhi tusma horta walaal adigii asxaabtaada waxaan doonayaa inaan maanta idin raalli geliyo waa idinku qaldamay wuxuu yidhi waxaan cabbaa buu yidhi alkohoosha amba khamrada qofba siduu u yaqaano wuxuu yidhi anaa qoray qoraalka laakiin markii aan qorayay wuxuu yidhi maskaxdaydu ma joogin raalligelin baa maxay sometimes qaar baa hawada iyagoo ku jira ayay kula kacayaan so taasna meesha ku darso commentiskana sideennaba soomaalidu uma fiirsato haddaad aragto facebook live qof soo galay hadda obra naagta la yidhaahdo waa naagaha maraykanka ugu caansan maalin dhaweyta waxay tiri commentiska waxay ka hadlaysay commentisku dadka damageka ay gaadhsiin karaan waxay tiri 5 kun oo qof hadday ku ammaanto oo hal qof oo negative kaa qoro aad aragto 5 kun ee ku ammaantay uma fiirsanay sidii halka xabaa maskaxdaada degaysa waxaas leedahay oo kaalay qofkani sidan buu kuu caayay ereygaasuu kaa qoray waay halkaa erey ee qof ee xun ayaa maskaxdaada degaya marka waxaa laga hadlayay sida aanan dheg loogu dhigin dadka negativityga qora ee ugu talagala dadka inay maaragtay social media ku aflagaadeeyaan باور بيلين أي قف كور وكبل هذا لبدأني فيري باور كيلين topic بان كتاجنين وجدان كهالليني جهة كلي إنه جديان just for their comments صح ورطة ما أنا واحد أنا ما تشعري أنا واحد كل شيء أنا قبلها الصومالي أنا كشخصيا عادات مال بيجي سعرين ما قرأتي واي أنا واحد هاي ما أنت الحمد لله دمرك الصوماليات waxay Soomaali oo qabteen ilaahay u baa ma garatay number 1 waxa weeyaan maanta wadankaygu iyo burbursan carruurtii ku dhalatay qurbaha iyagoo dhulku gaajo iyo dhibaato badan oo soo maray
waxaa la yidhaahaa dhalinyartii Soomaali amba ubadkii dhashay kacaankii markii dawladdu ay burburtay kabacdi ilaa iyo maanta diintoodii islaamka way haystaan ma garatay taana waxaa keenay waa dumarka Soomaali ma fahamtay صح dumarka Soomaali baa keenay ma garatay oo diintooda وارون ilaashanayay ma garatay Yurubtan waa nimaadnaayo carab baa soo gashay isla markiiba xijaabkooda tuuraan raggooda way dacweeyaan dhibaato badan bay u geystaan iyadoo saasana سوق الباب كان فرق والله رالي وحير سوق الباب كان waa فرق sii hadlayaa dhimalaas adigu tag ma garatay marka aniga dumarka Soomaali meel bay iga saaran yihiin ma garatay waa walaalahay waa hooyooyinkay waa eedooyinkay waa madaxaas iga saaran yihiin marka anigu markuu wiil ciyaal suuqa intuu soo fariisto xagga gabdhihii Soomaaliyeed iska caayaya qiimaha ay leeyihiin amba yani hadal xun ku oranaya anigu waa ka damqadaa ma garatay waayo waa qaali weeyaan de waxa maanta qabateen ummadeena oo qabateen waa waxa weyn ma garatay صح يعني أنا كيوروب تاجوجنا هذا ربتين حجاب كواس كسر له هذا أنا عرضت راس كسر له هذا جامعة دينا ينولش هنا أساس كاي صار له هذا رقعد عد بصاقو على هذا ما قرأتي أنا كو فالح حن أو مدمدو أو حلا يراها ولي وقاض عنا أو سيجار عبنا أو قبيلات أفريقيا واتكشع قينا أو أنا هرمر أنا سوكر دين أيا ولي بنت تراهني لا يعني سو هدي ما قرأتي مركا أنا بدو مركا صوماليين هذا مال في عم بيجي تاجي ما قرأتي إلهينا جاي صح كم تشعري عدة عايضة بيش كان شيء وقال دمرك الصومالي وبكحران هنا لقوا عايو لقوا أفلقاتي وحمات لو جيستو ما قرأتي المهم ويا موضوع عيني بنقلنا ما قرأتي صح وحويان مدحوينياشو يقول لفتو دمرك دور الشيء قليان ما قرأتي وحيابها يكون وضعان ضدك ماينورتيga xaqooda waan siinayna haduu farmaajo noqdo haduu Cabdiwali Gaas noqdo haduu Muuse Biixi noqdo ma garatay laakiin waxay yiraahaan dumarka ayay bulshada dhan ay ka soo horeysiyaan anigu ma aniga cunsurnimo u qaadan ma garatay laakiin bima inuu ku nahay Soomaali oo dhaqan Soomaali aan leenahay oo deeqnimadu ay حتى هذو يعني أي موقف أي لا ضحي وحيابها يراهن مثلا ورد مركا يضد كمنورتيجا جوية النقدان ترى النقدان حق وذا وسيلنا مركا تالفت دميانا أركين إن مضحضة عم بس سياسيين تمان تشوكتا إن قيب لواحد كل يهين لبعضهم يكلا صوع عن ومد رحت على يعصر مد رحت على يقلفت ودي بابا كيبا عنصرينا horta walaalo sidaan horeyba ku yidhi bolitiga maanta socda waa mid aan sidii dee saxda ahayd dadka anfacaysay aan hadda aan u soconin colaadaha iyo dhibaatooyinka iska taagan baana walaal horta keenay maanta madaxweyne kasta oo maanta meel jooga oo amba gobol ha ka taliyo amba federaal ha ka taliyo amba meeshuu doonaa ka taliyo Soomaali dhaliilaysa ma yaro qabiiladana haddaad dhex gasho sideedaba reer walba wuxuu ku leeyahay anagu waan waxa la odhan jiray ilaahu in hal deeqdo ha naga dhigin anigu horta taan politiga ka aaminsanahay waxaan aaminsanahay inaan helo just meel aan dee aniga ilmahaygu nabad ku seexano oon ku noolaano oo dee aan iskuulka ku geysan karo oo aan ku shaqaysan karo oo horta nabad inaad heshaa ka muhiimsan inaad madaxweyne noqoto ama aad kursi wax ka noqoto amba aad meel ka taliso meelaha qaarkood deegaanada qaarkood baa aaminsan hadday dawladda madaxweyne ku yeeshaan amba ay xildhibaan amba wasiir wuxuu doonay aan noqdeen ninkaasi inuu mar walba irbi uun soo hoynayo oo dhibaato xoolo dawladeed iyo wax xaaraana uu reerkaas soo gelinayo uun faa'iido kale aanan laga helayn dadka qaarkood baa aaminsan madaxweyne kasta oo maanta hadda for example ani madaxweynaha federaalka haddaan ahay how many people oo federaalka u socda ayaad shaqo siin kartaa reer hebel reer walba wuxuu doonayaa inuu horta meesha ka dhex muuqdo gidigeeda anu haddaan isaga ahaan lahaa gidigoodaba shaqada waan ka xayuubin lahaa madaxweynaha wasiirka arrimaha gudaha wasiirka arrimaha dibadda meesha dhanba 5 nin 6 nin baan kasoo reebi lahaa oo maaragtay dee waxaan oo dhan waan dareerin lahaa marka qofku hadduu ballan qaado uu intuu halkaas soo istaago uu yidhaahdo shaygaasaan qabanayaa khasab waa inuu dee ballantiisii oofiyo oo waa looga fadhiyaa waa wax looga fadhiyo
صح haddii su'aal la weydiiyo oo la yidhaahdo anagu reebel iyo reebel baan nahay maxaad naga damacsan tahay oo dee ka aamuso arrintaa ka jawaabayana isagii bay u noqonaysaa uun maxaan ku dhahdaa cawaaqib xumo صح so sideedaba bolitiga maanta 2018 cadnaanow waa jahwareer waa mid waa lagu kala dhimanayaa mooyaane mid wax laga dheefaya ma ah so anugu dadka Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa politic bayaan la iskuba sideen nabad u helaa horta ha laga hadlo sideen u helaa nabad sideen horta wax isku dooran karnaa aduu madaxweyne la doorto miyaad aragtay madaxweynayaashan hadda xildhibaanadaas oo waa wax la kala gadanayo iyo min xildhibaanadu keenayo maalinta one man one vote yimaade ee madaxweyne intuu gobol ku wareego uu yiraahdo anigu tanaan idin qabanaya dadka markaas walaal la qiimeyn kara oo la oran kara adigu haddaad hebel tahay in hebelkii kala waxa kaaga fiican haddaad hebel tahay hebel kala waxa kaaga fiican maanta Soomaali dhimashada sidee loo joojiyaa baa lagu jiraa صح dheefti iyo caafimaad iyo iskuulaad iyo wixii kale oo dhanba waxa maanta ka horeeya waan waxa la yiri meel iibiyaal abaari ma taalo meel cadnaa dhimasho taalo oo dadku dhimanayaan nabadi ma taalo maanta waxa lagu jiraa sideen nabad ku helaa dhimashada sideen ku joojinaa baa lagu jiraa mooyaane halkan aan ka muuqanayo inagu reebel hadaan kursigaanan wax ka qabsana iyo nin kasto qabiilku dooni aan noqdo nin kasto dawlad u shaqeeyana dee qabiilka waxba uguma yaale waxa weeyaan naftiisu u shaqo tagay waxa la rabaa ummadda Soomaaliyeed uu shaqada u qabtay waajibkooda inuu mariyo umbal maanta aniga maxaan ku radaa aabahay madaxweyne hadduu noqdo for example aabahay ani madaxweyne ima ah ummadda Soomaaliyeed oo dhan buu madaxweyne u yahay waa inuu waajibka ummadda oo dhan gudo oo A to C ummadda Soomaaliyeed aniga iyo hablaha Soomaaliyeed inuu nasimo way صح mid ani aan doortay maaha xataa haddii la aflagaadeynayo amba wax lagu samaynayo ummadda Soomaaliyeed baan ula simanahay mid ani igu socota mid shakhsiyadiisa ku socota ma waa mid madaxweynihii la doortay ee dalka la geeyay ku socota walaal صح so taas waxaan kaga gudbaynaa hal la sugo marka la gaadho xilli la isku footeyn karo oo ma aragtay qofka la xisaabtami karo qofka markaad ii footeyso aduu meesha ay saartaa ila xisaabtami karto صح haddaanad adiga ii footeyn oo anigu intaan soo istaago aan ma aragtay wada anaa ku madaxweynaha iyo anaa ku xildhibaana iyo anaa wasiir ku ah ilamaba xisaabba meeshii ma taalo mogti maba xisaabtami karno because aduu foodkaagii baad ku xisaabtamaysaa wixii aad miisaaniyadda igu siisay baad ku xisaabtamaysaa wixii aan ballanta ku qaaday in oofin waayaa la igula sida Mareykanka ka dhacda anaga hadda Donald Trump waxaan ku haysano waa waxyaalihii dee adiga arkaya waxa dhacay madaxweynayaashii hore ballan bay qaadi jireen waxba lagu qiimeyn jiray inkastoo hadda isagu ka duwan yahay kuwii hore madafiicna la soo galay laakiin dee qof walba ballan ku qaado ayaa hadhowta la weydiin jiray su'aalaha lagu badin jiray hadda wiilashan ma qaadi karaan ma Soomaaliduna hadday sidan deyn weydo oo isdabayaan iyo waxaan guumaabna waxaan wadaan joojin waayaan waxaaba soo socota in la waayaba nin yiraahdo kursigaas anaa ku fadhiisanay oo kursigaba laga cararaa soo socda marka anu hal su'aal diiday صح okay waayahay waxaan doonayaa intii ugu dambeysay ma garatay waan ogay waa daalan tahay horta thank you ayaan leeyahay ma garatay adigoo daalan oo tacban oo shaqana ka yimi inaad chance ka weyn la siisay ma garatay okay waxaa imka la talinaysaa hadday noqoto dhalinyarta Soomaali gabdhaha waxaa oran lahayd adigoo qalbigaaga ka hadlaya ummadda Soomaali qalbigaaga adigoo ka hadlaya ummadda Soomaali talooyinka aad siinaysid waxay tahay intay ka qaato waqti hadalka raaxadaada qaado waxa iska daaya waxa fiican hooyo Soomaali baan inahay kale amba gabar inaadirtiin baan ahay anigu Soomaali waxaan la talinayaa waxa iska daaya wallahi horta anigu hooyanimo iska daaya ayaynimaan ogolahay cadnaanow inaan gidigoodba ayay u noqdaan ogolahay haday wuxuu naga qaadan lahayn صح waxaan kula talin lahaa ummadda Soomaaliyeed inay iska daayaan horta kow Ilaahay inay ka baqaan dadka Ilaahay ka baqa ee qabrigooda xasuusan baa horta inagu yar dhibaatada ugu weyn halka bay ka socotaa dad badan oo waxa inagu jira aaminsanba inay dhiman doonin oo la aasi doonin baa horta inaga buuxa dadka Soomaalida waxaan kula talin lahaa horta Ilaahay ka baqa lambar 2 waxaan kula talin lahaa horta politiga haddaydan ka korin dabar go'ina un baa ku xiga politigan aad ordaysaan ninkii politicianka ahaa ee jaamacad uga soo baxay ee soo bartay aad hor ordayso adoo shalay geela ka yimi joojiyan horta kula talin lahaa completely politiga inay iska daayaan baan kula talin lahaa qabyaaladda laga kari maayo dhiigeenay ku jirtaa
inkastoo aanu markaan qurbahan eego qabyaaladii ayba fiicnayd bacdnaano oo soomaalida markaad guud ahaan fiiriso aad leedahay wallee qabyaaladii wayna caawisay markaad marxaladaha qaarkood fiiriso oo for example hadda aanu Soomaali baan ahay haddii caawa aan crime galo oo waddankan dhib geysto miidiyaha marka dhibka laga sheegayo lama odhanayo qof dumar ah oo madow ah baa dhibka geystay Afrikaan baan ahay qof madow baan ahay oo Afrikaan ka imi la odhan maayo qof dumar oo madow baa dhibka geystay waxa la odhanayaa gabadh Soomaali amba gabadh Soomaali ah oo hebel ah oo Soomaalinimadii baa ka horeysa rayskaygii iyo madowgii ka horeysa taasi waxay keentay inaan dadka madow waddankan waliba Mareykanka Soomaalida ku nool waxa waddankan ku nool dad madow oo originally adoonsi ku yimi markii dambana adoonsigii loo siyaasadeeyay oo maaragtay si gaar ah dhibaatadii u saaran tahay taasi waxay dhashay inaan anaga iyo kuwa la isku daray oo sida iyaga loo yiraahdo African American anagu aanan African American u ahayn oo nahay Somali American haddaad xataa tiraahdo qabyaalada iska daaya u malayn maayo Soomaali qabuurahay ku tagayaan qabyaalada qabuurahay ku tagayaan waxaan dhihi lahaa isku day intii aad qabyaalada yareyn karto qabiilaystanimadu qabrigaaga bay ku seejinaysaa dad baa qabiilka iyo dawladda iyo si ayna diinta u haysan qabiilka u haysta oo aaminsan subxaanallah haddii qabiilkooda laga maro inay ku dilaan ba aad waxba ugu ahayn marka saddexaad qabyaaladan kula talin lahaa marka afraad waxaan dhihi lahaa wixii adi dantaada waan ku jiraa hello 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 ما مغلسة hello 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 واحد صنقنا عي تلفونك ما ويلو ماسنجر كنت نطوره الو يقرا له هو قفا سوق لي I know it xaggayga inaan hidiya ma garanayo adigu uu iskooyin dhinacayga wixii adi dantaada ah ee adiga qabrigaaga iyo mustaqbalkaaga wax ka qabanaya ka tali ha ku talinin dadka inaad kala disho iyo dhibaatooyinka socda iyo masiibooyinka hadda waddanka ka taagan inaad qayb ka sii qaadato ka tanaasulaan dhihi lahaa wixii anfacaya dadka kaa dambeeya ka fikir hadda dadkii hore dad baa walaal soo dagaalamay dad baa naftooda ku soo waayay xornimadeena dad baa Soomaali in gaaladii haysatay laga saaro u soo dhintay maanta hadday og yihiin tan inay dhacayso u malayn maayo inay naftooda ku waayi lahaayeen ka fikir 20 sano soo socda ka fikir markaad dhimato waxa aad uga tagi lahayd ummadda Soomaaliyeed bal wax uun ka tag dadka Soomaaliyeed wax uun uga tag wax wanaagsan nooga tag oo maaragtay ubadka aan dhalay iyo kuwa dhali doonaan anfici doona ka tag siiba haddaan laga tahay waa tii la yidhi dalkaaga iyo diintaada iyo maxaa leedahay iyo dadkaaga kii anfacan noqo ummadda Soomaaliyeed mustaqbalka iyo awlaadda hadda dhalan doonta amba dhalatay amba 100 sano dhalan doonta wixii anfici lahaa ka fikir ha ka fikirin wixii maanta adigu anfici lahaa afarta qof ee Facebook soo galaysa maxaan ku radaa waxay ku oran doonto ha ka fikirine waxaad ka fikirtaa 200 sano kadib dadka dhalanaya waxa taariikhdaada wax wanaagsan adduunka kaga tag waxa kale oo kala talin lahaa maxaan ku dhahdaa goboleysiga kala googo'ida dalkan especially dumarka ayaa tan iskale Soomaali haday kala go'dana meesha rag baa ka taliya haday heshiiyaan iyaga haweenka waxaan dhihi lahaa ilaahay intaad ka baqdaan xooga aad gelinaysiin burburka Soomaalida dumarka Soomaalidu sibay u fiican yihiin oo dalka iyaga heerkan soo gaarsiiyay sina dhibaatooyinka socda baar bay ka yihiin ka dadka leenaya gabar Soomaalidu ka soo akacaya ka madaxweynaha ka baxayga wasiirka nin walba gabar buu guri kaga imanaya haweenka Soomaaliyeed ee soofaynaya Soomaali burburkeeda kuwa qaarkood soofaynaya waxaan dhihi lahaa awlaadiina iyo mustaqbalkeena oo ka weynaada kolay Soomaali ma dhamaato walaalo wixii aniga maskaxdayda ku jiray waxyaalahaas baa hadda ma aragtay u horeeya okay
waayahay insha allah waa ogtahay waxaan doonaynaa dabcan barnaamijkayga waxa weeyaan challenge ma garatay Mhm. marka adigu yaa is leedahay oo adigu la hadlaysaa hadhow toole siduu waraysigan iminka aan uga soo qayb galo aan iminka saan ku waraysanay adigoo kale yaa adigu is leedahay challenge ku samee soo jiwa uga soo qayb galo challenge waxaan horta waxaan ku sameynayaa intaan challenge-ga u gudagelin gabay yaroo gaaban baan doonayaa inaan kula wadaago okay soo gudbi gabaygaasi ereyada ninkii iska lahaayo ereyada isagu soo tiriyay oo ii dhiibay baana challenge garaynaya insha allah maasha allah maasha allah ilaahay ku daayo wallahi soo dhow soo daa gabayga masaayibtan soomaali weyn madaxa loo saaray masaayibtan soomaali weyn madaxa loo saaray miyiyo magaalaba dhibtaan mara laga waayay madarkii cirkoys xidhay dhulkoon midha ka soo yaacin madarkii cirkoys xidhay dhulkoon midha ka soo yaacin macaluushan hadhi weyday iyo malkan dabar beelay waa midii u quudhsigu dhigood madhaxsanayseene ka macaasha waataad sharciga muronka keenteene maasha allah ka macaasha waataad sharciga muronka keenteene ma dhibaan inaan maagnoon midabta kor saarno muslimiin ilaahay taqaan mahadha loo geysto milgahay lahaayeen markaan maydhnay sharafkooda masiibadu halkaasay ka timid doqoni waa mooge ka macaasha waataad sharciga muronka keenteene mudaciyo maxadhkiyo dadkii gudunta mareeyey mudaciyo maxadhkiyo dadkii gudunta mareeyey ee kabaha maaska tole milicdan oo diiday ee kabaha maaska tole milicdan oo diiday magligana afeeyiyo warmahag cadow ka magayo magligana afeeyiyo warmaha cadow ka magayo midiyaha raggiinoo tumiyo weliba macunta maalinaynu siinay ahayd amase maamusno oo ay muhiimaan iyagu magaca soomaali badownimadan marowdayba meehana ugalahe badownimadan marowdayba meehana ugalahe ruuxii masaanixii masbaax baxaya weeyaane maskaxdiisa furan bay khalqigu kaga macashano waa waxaa galbeed mahadiye maariska uu dhoobshe masiibadu markii ay dhacdeen dunida mashaynay kolkiyaan maraykan iyo ruush magangelyo waadnay muslimnimada ruux soo galo malma quudha joogay madow iyo ajaanib gabdhahaw meherinaysane muxubbaad u haysan wanaag madaxa sartane waxaad ugu midixdan sidii igadh maqareye ma dhibaana wow diidaysaan iyo ma shiiqdiye ma ahaynaan dacninayoon dadka anigu magaye masaladan la yaab kale inaan muujiyaan rabaye waxaan challenge garaynayaa gabayga aad u dheereeyay laakiin والله حتى ما مركب ورا والله ما شاء الله إلهي هرت عاد يرى في عمرو كسيي
aniga wallahi waa isku ilaha ma sha Allah ma garatay ilaahay ku daayo marka ugu horeysa wallahi aad iyo aad baan u thank you farxay ma inaadeer garatay thank ha you ilo horta sa gabaygaas waa wax mar horaa la ii dhiibay wuu dheer yahay insha allah waxaan rajaynaynaa inaan isagoo fiidiyaa soo saarno sa marka waxaan challenge garaynayaa sa abwaankii ereyada sameeyey gabayga ii dhiibay muddo hadda sanad laga joogo ayuu ii dhiibay gabaygaas abwaan sa luqmaan abwaan cawil cawil oo sa ugu magac dheer abwaan luqmaan ayaan challenge garaynayaa wallahi odayga horta ninka bari horan diidi jiray moogta hay waa ninka gabaygiisa yani gabaydiisa waan dhegeysan jiray waa nin aan jeclaa wallahi waxaana jeclaa maalin inta jiwelka magaraysa ku wareysto waa ninkaasi maasha Allah waa nin gabaygiisu ay qiimo badan leedahay xataa gabay hooyooyinka u qaadan waan maqlay ma garatay صح marka insha Allah waxaan jecelnahay adigu inta la xiriirtid oo anakuna waxa la yiraahdaa waa la xiriireynaa dhinacayaga ma garatay oo insha Allah waqti amba uu nasiyo insha Allah waqtigiisa qaaliga wanaga waa fanaan iska mashquul yahay ma garatay adigana insha Allah waan ku mahad celinaynaa jaaniska weyn aan nasiisay iyo fursada weyn aan nasiisay adigoo ma sha Allah fanaanad weyn ah oo qaali ku ah ummadda Soomaali ilaahayna waxaan ka barayaa fanaanad saado kalena inuu ilaahay noo badiyo ma garatay si aan waxa la yiraahdaa horumar aan u gaarno ma garatay آمين لقمان صح أبوان صح لقمان هرت وشيخ ويان وانين آدي الدين توجو ناكسن أو أهل الدين أو شيخ قبيدي سنة 90% والدينيا بيك هدلان قبي عدو ترى بدن بوتريي قبي باجري ويدي بي مرهرة أو كهدليا أنصار عربية يوتيوب كوجرة هذا على هذا عرب سبريت أو دجال عرب توبا أنت يدعين بوسمية ساكت اللي صدق قبي قوتري أنا وأود عدي وحود عين buraanbur waxaa jiray oo wiil uu dhalay u tiriyey oo anu ku luqeeyay youtube-ka ku jira oo maad aragtay dad badan ay daawadeen oo dadka aad uga heleen baa jiray abwaan luqmaan waxa weeyaan waa wiil da'yar oo aniga iga yar laakiin anagu aanu aad fareen u nahay oo my best friend baan ku wici karaa waa qof aad u wanaagsan oo waxyaalaha dhowrsoonida la rabto oo dhan isaga lagala hadli karo anigana aan aad talooyin badan u weydiiyo أنا الله هذا دونا إن شاء الله إن permission لأنا أنا جو إذا كون permission إستينين هل كان إنتان سوفر يستو ما عنده لهين ما جي سما سوق قادن لهين وان الله هذا لما أنت وان بيجي وحن كودي ولا يسوي challenge كريه أنا جميلة يسوي challenge كريه سي بيج كائن عن كهذا أنا جنا وحن دونا يا إن هذا وتو أدي كو challenge كريه محد كقبتها permission بونه إيسي إن challenge كريه أو ما عرفت أنا ما جي يستعمله إن شاء الله أدي كنا وان كودي في دونا إذا كنا وان وشيء دونا مركا aad baad walaalo mahadsan tahay aad ba adiga iyo asxaabtaada iyo ummadda Soomaaliyeed ee maanta in daawanaysayba waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsan tihiin waan ku salaamayaa insha Allah walaal aad iyo aad baad mahadsan tahay ilaahayna ku xaafido insha Allah anade markan uu maaha insha Allah mar dambana waa ku soo jiideena ma garatay arimo badan baa laga hadlayaa jiwaan maaha arrimaha siyaasadeed marwar ma ka hadlaa arrimaha dumarka arrimaha waxa la qowska مرور ما كهذا تهريبته دباتين كذا قضية بدن أو إن شاء الله أنا كنا حتى واحد دولنا بيش كان ما هون أنتو قضية فاميلي عم بعد وكسر سنة هذا ما قرأته واحد دولنا بيش كان أنتو نقضي بيش صومالي بقول كذا بقول اسكال هذا هاي هرمر كذا كشقينا يا أن دوني إنه إن شاء الله شخص نضوط كبعدي إن المسكح ذا أمد الصوماليات هذا أنا كنا هاي أور وحلي رها تي في تي ويل إن وحي كبدنه أو وحي دباتوينكي كالسعودية أنت أنبا وحي أنا سلاننا هاي وحباك قلدان أمدينا الصومالي إن أنكسحنا ما قرأتي مركا إن شاء الله وحن جعلنا هاي ماها مر ماها لبو إن شاء الله مركا السنة وين نسوي لنا رأينا يفكر كينا وناكسنا إن شاء الله مسوق بيننا مركا إن شاء الله والله الحبين وناكسنا ما كورو شيء أدباد هاتنت هاي ويلان أيي وهاي باهرتو كجرا نحاجيga ina Saciid Axmed wiilka u qoran tahay waxaan rabaa codsigiisa inuu dhameystiro wax badan buu wuxuu soo qoray codsi ayay waad weydiisan kartaa ku soo dhaqso codsigaaga ayaan leeyahay waa runta walaalo way fiican tahay maadaama dad aad u tiro badan ay page-kan ku xiran yihiin waxyaalo badan oo Soomaalida ma aragtay anfacaya inaad ka hadashaan anytime na walaalo diyaar baan idinahay oo ma aragtay chance helo marka insha Allah waad igala soo hadli kartaa insha Allah biidmillahi kariim waxaad u baahan tihiin diyaar baan page-kiina u ahay anytime na insha Allah waan ka soo qayb geliyaa walaal insha Allah waxaad tiri wiilka magacii xaajiga ina Saciid Axmed baa u qoran ha okay dhumalaha marka waxaan doonayaa bas inta ku weydiiyo arrin yar oo basiida ma garatay صح
horta tan way ka baxsantay su'aalaha ma garatay horta صح dadka matalan Soomaaliya ku kora anigu nin ciyaal carbeed baan ahay ma garatay carruurtan وانقر waxaa la yidhahaa carabta ku koray ma garatay صح marka waxaan dareennaa marka laga yimaado Soomaali iyo siyaasadeeda iyo cunsurnimadeeda ma garatay صح waxay yidhahdaan niyo dadkan carabaha ka yimi maartay maskax ma مهم. laha ma garatay waxaa la مهم. yidhahaa dadkan maartay waxba aan weydiin matalan maanta jarmalkaasaa imanaysaayoo qof baa raacaysaa waa u turjumaysaa hadda adigii baa indhow ah oo luqad yani gaar ah haysta ma garatay صح marka waa raacaysaa waa u turjumaysaa wax kasta waa qabanaysaa hadhow baa arkaysaa iyagoo meel gooniinta ku shireen ku oranaya niyo carabka maartay ya war isaga laftiisa haduu dawladda wax inoo sheegaa marka waxaa su-aashan doona weydiiyo dadka carabaha ku koray horta soomaalida ah waxaa u yeestiin horta ya walaalo horta waxa weeyaan dadka horta carabta ku koray waxaad ka horeysaan caruuraha qurbahan ku koray ee hadda anagu dhalay halkan ku haynaad ka horeysaan صح kuwan waa adiga arkay magacyada loo bixiyey say wallaahi iyo whatsapp iyo maad aragtay اه xataa dad baa ugu yeedhay dadkan anagu aan korsanay inay yihiin dad dhiman oon caadi ahayn صح صح marka carabta dadka ka yimaada anuu uma arkayna meede lagu liidana ma arkin صح laakiin carabta iyo soomaalida baa waxaa dhex taalla xurguf yar oo iskiinka ka yimi maqaarka madow carabta صح dadka madow waa dadka uu rayska madow ugu neceb waa carabta haddaanay diintu soo gaadhinna dhulka carabta mabaynu galleen bade ilaa iyo صح hadda cabiid loogu yeedhaa dadka madow صح oo maraykanka iyo dadkan yurubiyanka iyo markay noqoto maqaarka madow carabta more صح sensitive ah madowga صح ah inaguna dee dad madow صح baynu nahay xurguftaa صح yaroo kale oo meesha jirtay laftirkeeda way keenaysaa in carabta ilaa iyo hadda halkaas la riixo laakiin صح dad badan oo carabta kusoo dhashay oo carabta kusoo koray carabta wax kusoo bartay oo maanta soomaalida wax ka abaa jiro oo magac leh oo fanaaniin waaweyn oo carabta ka yimi oo kusoo dhashay baa jiray صح waa uun kolley dee waa tiimka malaha dee tahriibta wax usoo dhintay dadka aad u turjumaysin inta badan waa dad soo tahriibay soo maha هذا dee waa ma aha waa dad carab ahaan iyo dad carabta ka yimi inay riixayaan kama aha laakiin tahriibta maybe لا waa tiimka aad u لا turjumaysid ba ay wax sheeko ku eg inay tahaan ما هي والله ما والله حتى عربها ما كان شوقي وضياشي واوين مارتي برعكي مادي هرقيسي وميلها كي مادي مارتي واوين ما قرتي صح ايا ما قال صفر سنه ويرا وني لا حول ولا قوه وني عرض اريغان عربيد مارتي وادباطه سقطه ما قرتي يا اما بكي هلميسد اف عربك كولا هادليانو شر انت ka tuurayaan inta shir ka tuurayaan garanmaysid markaas oo jinaya waa caadi markaas wuxuu iska dhaadhacsan yani waxaan dareemi jirnay yani inta oranay anaka inaga maskax weyn kuwan waa xoolo ma garatay mar dambe u arkaysaa isagoo haddana kule adeer waxa igu caawi markaas hor jirnay dib ma laha ma garatay marka waxa weeyaan Soomaalidu wallahi dhibaato ay nagu haysaa wallahi dhibaato weyn ma garatay ma aynu anaku waa naga faa'iidi karaa waayo diintii si fiican baan soo baranay yani wax jacaylka wadanka waxa la yiraahdo wadanka waxaan dhiga jirnay kutub ku baraysa macnaha wadanka wuxuu yahay inaad jeclaatid maanta anigu waxaan aaminsanahay dhalinyarta carabaha ku koray hadda imka Soomaali loo dhiibo boqolkiiba 8 waxba isbedeli lahaa waayo de wixii asaasiyaadkii aan ku soo baranay baa jirta ma garatay wadanka macnihiisu wuxuu yahay qiimuhu leeyahay waxyaabaha ka ilaalin kartid qabyaaladu markiisid ba ciyaala carabaha ka yimigo qabyaalad ma ka hadlaya ma garatay صح aniga dad badan baa la yaaba marka anigu mesela TWL-ka la soo baxay iyo qadiyadan gabooyo iyo markaan ka hadlayo waxay raadinayaan cadnaanow goorma qabyaalad bulooday markaasaan kula war qabyaalad ma aha waxna waa wacyi umada wacyigelinaya ma garta xataa yani hadalka nimanka ka hadlaynayo wareysigan wareysanayno iyagu waxa loo hadlay arkaanba qabyaalad horta ma ogtahay صح marka dadka qabyaalad ma qalbigooda iska nadiif yahay waxay xukuumadda Soomaaliya ku hayso weydayo ya wax ugu dhigan weyday ka faa'iido weyday qurbaha waxa ku soo arkay wallahi horta qof kasta oo ehlu diina maanta haddii wax loo dhiibto oo diinta qofku ma yaqaana ma ah diinta qofku ma ku camal fala wey qof kasta oo diinta ku camal fala maanta haddii wax loo dhiibaa wax laga faa'iidaya maad aragtay dadku diinta way wada yaqaaniin laakiin kuma camal falaan dadka carabta kusoo koray amba halkan qurbaha kusoo koray waxaad la qabtaan caruuraha halkan anagu aan ku haysanay magacyada loo bixiyey maaragtay say wallahi iyo whatsapp iyo kolba loogu yeedhayo
kuwaasun baad la qabtiin kuwan hadda kuwana weliba idinka daran oo dhaqan celis marka carabta laga yimaado dhaqan celis lama odhan jirin hebel baa dhalay qurbuu ku dhashay carabtuu ku dhashay waa in waa la soo dhaweyn jiray laakiin hadda caruurahan qurbaha laga celiyo dhaqan celis magacyaa loo bixiyey oo maad aragtay markay af soomaaliga bartaan waxaad arkaysaa iyagoo xanaaqsan oo leh waxaa laygu yeedhi jiray ereygan sidan baa lay dhihi jiray sidan baa lay dhihi jiray marka is our race walaalo racekeena soomaalida dhan baa iska sidaaya dad waxaynu nahay dadka adduunyada ugu kaftanka badan kaftankeenuna waa sensitive haddii la qoro waxyaalaha lagu kaftamabaaba waxay yihiin waxyaala caalamka kale ku kaftami inagu ku kaftanaa iskula talax tagnaa marka waa wax rayskeena ka mid a u malayn maayo waxay dadka carabta ka yimi cuqdad gaar oo loo qabo inay jirto uun waxa weeyaan caruuraha foreign dhulka qurbaha ku dhashay oo dhan baa soomaalidu liidaa صح ضد على قبل يقولوا بس علي ملايين باي مك حاجه قبل markii lagu wiidaa lahayd ma ugu soo kartaa ya buraanburka hooyadana qaar baa codsanaya ninka ku sheegay iyada waxay u codsanaysaa buraanburka hooyada صح ma gabaygan ku soo celiya mise buraanburka marka labadaba adarfid buraanburka adiga lafteeda doonaya wallahi ma sha Allah cod weero macaan baa ilaahay ku siiyay ma garatay aan ka faa'iideysto dadka wallahi gabay buraanburku waa hooyo wiilkeeda la talinaysa صح sidoo kalena ereyada luqmaan baa sameeyey hooyada markaa inankeeda waxyaalo badan oo kala duwan bay kala hadashay ma dhammayn karna laakiin haddii lagu luuqeeyo waan isku dayay inaan caadi u dulmaro waxay leedahay qorraxda oon dhala ninkan fooshi qaadayow een qudhayda u yaabay ugubnimadu waa khatare qumana wiilkayga qaadirkay isiiyeyow murtidu waa qaali ee tayda meel ku qoro dhegtaadu ha qabato qalbigaaga ha u degtaa hooyo qowlkii ilaahiya qur-aanka baro oo qaali noqo diinta garanaya qodob walbaba qalluhu waa leydi qaaducu salaad ha noqon oo qabriga iyo iilku qalbigaaga yay ka bixin bay tiri waxbarasho waa qaali bulshaday qabyow tirtaa buugga iyo qalinka qaadoo dadaal ku qabo qaranka iyo ciidda waddankeena qaaliga ah naftaada u qisaasoo dhiiggaagu ha u qabteen bay tiri maasha Allah qamarji baxroobay saaxiibu qalqaal ha noqon qadaad kol la xiirta qurux yaanay kaaga dhigin khamrigu waa cudur qalbigaaga yaanu galin sigaarka la qiijo iyo qaadka ha isku baran sigaarka la qiijo iyo qaadka ha isku baran qabuulka allaale qaadir ku ajiib ducadow gabaygu aad buu u dheeraa waxay tiri haddii gar laguu qabsado geed lagaaga waco hooye garmaqaata waa ceeb garyiga lahaw gartaada u sheega sida guulaheen og yahay haddii guurtidii la diray ay go'aan ridaan hadday gartu kugu xun tahay oy gulaalan tahay gacanta ha ku saydhin oo geedka ha uga kicin oo hooya ha gariifin guurtidu waxay gartaan waxaad arkaysaa qof yidhi gar ha la ii galo oo garta marka loo qaaday laga gar helana dadkiiba meesha uga xanaaqo oo uga tega inaad qaadatidu dadka uga kicin weeye waxay tiri qaraabo kuu timid oo qoyskaaga soo martiday hooyo qosol iyo salaan fiican ugu qushuuc qolqolka ha istaajin ee qolka hore u gogol qaaci u diyaari iyo qoob cad iyo sariir oo wixii u qalmaaya iyo qaalmo fiican sii oo qaraabo waa rixina hooyow dadka ha qadin bay tiri maasha Allah haddaad madax noqoto oo meel lagu igmado magacu waa sharafe maandhiiska ha iska dilin waxay tiri madaxda gabayga aad buu u dheeraa hadda korka kama wada hayo laakiin martida soo hoyata iyo maganta yaan lalayn buu ku ekaa ee qabuulka allaa leh ee qaadir ku ajiib marka buraanburku aad buu u dheeraa hooyo wiilkeeda waaninaysa oo ka hadlaysa gar haddii lagu qabsado ka hadlaysa haddii ay gacal iyo xigta marti u timaado wadaninimada madaxweyne hadduu noqdo dadka aad bay uga heleen waxaa laga dhigay aab yar baa laga dhigay whatsappka la iskugu diro markii dambe waxaan decide gareynay hadda inaan in ku darno oon maaragtay dhaqankii iyo waxyaalo yar intaan ku kordhino haddana aan mar labaad dib usoo duubo marka buraanburku waa kaa gabaygaan ugu celinaya okay نقول قبل مستعيبتن سومالي وين مدحا لو ساري ميو مقالة بدبتان مرة لغا وايي مدركي عرقويس حراي دولكون مدكا سوياعين معالوشان هاري ويديو مالكان دابر بيلي ومدي وقرصيغو ديغود مدحسانيسيني كما عاش واتاد شرعيغا مورونكا كنتيني ما شاء الله
ma dhibaan inaan magna oon midabta kor saarno muslimiin ilaahey taqaan mahadha loo geysto milgahey lahaayeen markaan maydhnay sharafkooda masiibadu halkaasay ka timi doqoni waa mooge ka macaasha waataad sharciga muronka keenteene mudaciyo maxadhkiyo dadkii gudunta mareeyey ee kabaha maaska tole milicdan oo diiday magligana afeeyiyo warmaha cadowka magayo midiyaha raggiino dumiyo weliba macunta maalinaynu siinay ahayd amase maamuusto oo ay muhiimaan iyagu magaca Soomaali ما شاء الله oo ay muhiimaan iyagu magaca Soomaali oo ay muhiimaan iyagu magaca Soomaali badownimadan marowdayba mehanowga lahi ruuxii masaanixii musbaax baxaya weeyaano maskaxdiisa furan bay khalqigu kaga macashaane waa waxaa galbeed mahadiye mariska uu dhufshe waa waxaa galbeed mahadiye mariska uu dhobshay masiibadu markii ay dhacdeen dunida mashaynay kolkiyaan maraykan iyo ruush magangelyo waadnay muslimnimada ruux soo galo malma quudha joogay madow iyo ajaanib gabdhaha u meherinaysane waxaad ugu midixdaan sidii igadh maqareyo muxubaad u haysan wanaag madaxa sartane ma dhibaana waa u diidaysaan iyo mashiiqdiye maha inaan dacninayoon dadka anigu magaye masaladan la yaab kaleynaan muujiyaan rabay ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله إلهي بداية والله جزاك الله ألف خير ما قرأتي thank you والله قلبي يا مركا يعني برامبركا waxaan dareemayaa ma garatay qalbigaaga intuu ka soo baxayo moogtahay aad baad u mahadsantahay walaalo aad baad u والله mahadsantahay ريالتي thank you والله إن شاء الله ما قرأتي شعبكنا داwanayana إن شاء الله waxaan leenahay thank you baan leenahay de waa إن شاء الله iyo mar kale ma garatay waa inoo mar kale walaalo aad baan kuu salaamaya aad baan kuugu mahad celinayaa fursadan qaaligeed siisay thank you baan ku leeyahay asxaabtaada dhammaantoodna waan salaamayaa walaalo aad baan idiin salaamayaa giddigiina asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baad ilaahi walaalo والله إن شاء الله hayi هذه walaalo هذا asalaamu calaykum waxaa la yidhaha aad iyo aad ba umahadsantihiin kulligiin insha allah week kastana insha allah qof waxaa la yidhahaa hadduu yahay suxufi hadduu yahay dadka ka shaqeeya tviyada hadday shaqeeyihiin dadka fanaaniinta ah insha allah si aa uga faa'iidiin insha allah hadday noqoto waxaa la yidhahaa qadiyadaha soomaali amba hadday tahay waxaa la yidhahaa qadiyadahan waxaa la yidhahaa dadka waxaa la yidhahaa minority-ga laisku yidhaaho si aan u helno waddan waxaa la yidhahaa la waraleeyahay si aan u helno waxaa la yidhahaa dhalinyar isfahamta barnaamijkan dabcan dood maaha waa su-aal iyo jawaab hadafka aan ula jeednana badanka waxa weeyaan inay soomaali inay ismaqasho barato waayo badanka beejada ka furan facebooka amba social media ka furan waxa weeyaan waa dood laba qof baa doodaya xaggaasaa laisku maagayaa qabyaalad baa la gelayaa qurun baa la gelayaa waa la iscaayayaa waa isla aflagaadeynayaa laakiin anaku haddaan nahay ururka jwl insha allah
waxaan doonaynaa systemkaas ay soomaalidu muddo dhaweyd ay waday inay wax isbedel insha allah uu ka yimaado oo wixii la kala faa'iido oo si wanaagsan loogu kala tago hadda la isfahmi waayo marka insha allah waxaan leenahay insha allah waa ilooyo wiiga dambe aniga shakhsi ahaan barnaamijkan aan wado wassalaamu calaykum waana idin mahad celinaya intaan salaamin waan idin mahad celinayaa thank you baan leeyahay cid kastoo na daawanaysay cid kastoo share garaysay cid kasta oo waxaa la yidhaahaa beejkan ku xiran intaasu baa inaga baxayaa waa mahadsantiin ummadda soomaali waana jeclahay wadnahayga iyo caqligaygu waa soomaali horumarkiina iyo wanaagiina insha allah waan jeclahay intaas un baan jecel inta ogaatiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh